baasto maasha allah. baastada biyaha markay karkaraan dhalinyaradan la hadlayaa, hooyooyinka iyo gabdhaha waaweyn way garanayaan. walow sanadyadan dhalinyaro badan oo waxaa jira wallaahi cuntada si fiican u kariya oo yaqaana oo barta, laakiin kuwa la dalacsiyaan sheegano. kuwa la dalacsiya aniga camal hadda dhowaan bartay cuntada, which is not right inaan barto hadda, waqti hore inaan bartay ahayd. marka walaalahay ayaan uga faa'iideynayaa. wallaahi waxaan xasuustaa anoon rabinin waxaa guriga yaalla inaan cuno. markaas waxaan rabaa inaan soo gato banaanka waxaa lay dhahay may inta waa inaad karsataa. markaas waxaan dhahay se u kariyaha ii sheega, because even schoolka waa lagugu dhigayaa, laakiin lazy waad ka tahay. gurigii wax walboo diyaara baa lagu hoos dhigaya, lagu soo hoos dhigaya. waa naqaanaa hooyooyinka soomaalida iyo gabdhaha walaalaheen soomaalida. marka waxaa la sameeyey hadda aniga waan ku qasbanaaday inaan sameeyo, laano anaa u baahday, familkiibaa u baahday. marka waxawaaye hadda waxawaaye tartiib saan ugu sameynaya. hadda sheef baan ahay, qof sheef ahaan ahay. hadda dabka waxaa ii saaran baasto, biyaha dabka saaraysaa, cusbo yar baad ku daraysaa. bacdeyn markay biyaha badbadaan ama karkaraan saa hadba u taqaano, ama baylaan, af soomaaliga hodan baan ka ahay aniga. markaas ayaad baastada ku daraysaa. markaad baastada ku dartid waxay ku xiran tahay daqiiqada aad rabtid baastada. haddaad rabtid baasto oo xoogaa adagoo inaad calaanjiso aada u baahan tahay, ama aada u baahan tahay baasto jilicsan oo dhiindhiina, marka is up to you, macnaha sid adig kugu xiran tahay. marka aniga waxaan jeclahay baastada jilicsan xoogaa, oo aan sidii oo maaragtay wax yaro isku dhedheganoo macaanoo miid camal ah aan jeclahay markii suugada iyo lagu daro hilibka iyo waxaas. marka insha allah baastadii waa taas oo noo badbadaysaa. waan isku soo noqon doonaa walaalahayga soomaaliyeed. like-ta subscribe-ka hayga iloobin iyo commentiga say dadka kalena u gaarto. waa mahadsantihiin. aan isku soo noqono. waad ujeediin waan kasoo bixiyey biyihii. marka waan daminayaa tan, laakiin waxaan rabaa inaan noodles ka dhigo oo markaa maraqii iyo hilibkii iyo vegetablekii greenka ahaa aan iskugu daro. markaa ila socdo insha allah. soo daray vegetablekii iyo maraqii hilibkii. markaas waxaan rabaa inaan ka dhigo like noodleska, ama aniga basta iska dhahnaa maogtahay. laakiin xoogaa anigu waxaan sameeyaa sheeko kale oo aan aqaana aniga. waxaad sameynaysaa in yar oo caana ayaad ku daraysaa. waxaan ugu darayaan idiin sheegaya. markaa caanaha markaad ku dartid, caanaha waxay noqonayaan sidii yogur inaad ku dartoo kale, ama mayonnaise aad ku dartoo kale. markaa hadhowta waa arki doontaa sida isku noqdaan. waad just time baad siinaysaa, waad ku dabooleysaa xoogaa, dabkaad u gaabinaysaa. waad arki doontaa siday ku noqdaan. baastadii markaan kariyey biyihii baan ka daadiyey, in yar baan ku reebay, caanahan ku badiyey, suugadii iyo hilibkii iyo vegetablekii baan ku daray. bas wax kale ood uga baahan tahay ma jirto. waad ku dabooleysaa, dabkana waad u gaabinaysaa. marka waan isku soo noqonaynaa insha allah. waan idin tusinaysa noqoto. hadda waa ujeediin caanihii biyihiiba way kursatay. baastadaani ayada dhan waa maliid. wax walba waa isku bislaadeen, way jilceen. noodles waaye. noodleska midaad la dhaho waaye. haddaa rabtidna saasaa u karsan kartaa, haddaa rabto waa kala karin kartaa. marka aniga saanan maanta u kariyey. marka insha allah biidni illah wax walba waxay ku socdaan sidii loogu talagalay. waxaa waaye sidii oo maaragtay nice oo maliid ah waaye. vegetablekeeda waxeeda dhan way wadataa baas. marka waan isla soconaynaa markaan saxanka ku rido insha allah. waad ujeediin maasha allah baastadii saanay kusoo baxday.
hilibkeedii waxeedii dhan dhiidhiin ba isku tahay, jileec nice macaan. caanaa lagu cabayaa iyo xabad abalah. insha allah biidnillah walaalayaal waa mahadsantihiin inta daawanaysiin. saa u barta baastada haddaad karsanaysiin dhalinyarada aad rabtiin inay si fiican idinkugu macaanaato, caano yar ku dara marka ugu dambeysa bislaanay rabto. wixii aad rabtaan ku dhex dara. noodles waa haddaad rabtiin, haddii kalena waa kala kari kartiin, korkaa uga shuban kartiin wixii suugada iyo wixii aad rabtiin. laakiin tan waxa waaye special waaye, waa noodles oo gurigaaga aad ku sameysanaysid oodan aadaynin meelaha lagu sameeyo. marka waa kaas, barasho wanaagsan dhalinyaroy. yaan idinka maqlin hooyo see u sameynaa iyo aaba see u sameynaa iyo walaashay kaale iisoo sameeya waxaas. markaas waxeedii basbaaskeedii waxeedii dhan, basbaaska unbaad geeskan ka saaranaysa, saladka unbaad ku darsanaysaa haddaad rabtid. anigu caanahaasaan cabayaa. insha allah biidnillah walaalahay kheyr baan isku rajayneynaa. fadlan haddii aad la idmo ood aragtaan, like-ta ha iga iloobina, commentiga iyo subscribe-ka si ay walaalaha kale u gaarto, dhalinyarada kale u baahan. anigu waxaan u taaganahay waxa waaye waa dhalinyarada aniga soo maray waxaas. ma ogtahay dhalinyarada aan garanayn sida wax loo karsado oo weli aabahoodii hooyadood iyo walaalahood ku hoos jira. fadlan waxaan idin leeyahay waa inaad wax barataan, sida wax loo karsado aad barataan, ood ka free ka noqotaan gacan bilo-aadmi. waan ognahay gabar walaasha ay markay joogta xataa jikada inaad lagu ogolayn. waxaa jira laakiin wiilal fiican oo hooyadood iyo walaalahoodba caawiyo, oo jikada weelasha xataa la dhaqo, cuntada la kariyo, oo caawiyaa jira, hooyada caawiya. example gabar hooyo hadday leedahay wiilal aysa gabarba lahayn, ayada maa wax laga sugaa ilaa intaa ka weynaanaysiin? may, waa inaad caawisaan, waa inaad dhabarka u xiratiin, waa inaad wixii aad samayn kartiin oo dhan aad samaysiin. hooyada aad ka fiirsataan, aad ayadoo jiista usoo karisaan. hooyo inaad la nasiyo waaye. waa mahadsantihiin. waa walaashiina waal oo idin leh kheyr iyo barwaaqo ayaan idin rajaynayaa. waxaan idin leeyahay nabad ayaana deeqda, nabad ayaana deeqda. dalkeena iyo dalkeena iyo diinteena iyo dadkeena baan aan wax u qabsano, aan wax u barano. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.